rabnaa ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa iyo midda gobolkaba in aysan jirin gobol dib u heshiisiineed ee reer Hiiraan ay isugu imaadeen ee la laabay amaba socoto ma jirto. waxaan ka mid nahay gobolka Hiiraan dadka degan gaar ahaan degmada Beledweyne arrintaas ayada ana nagulamana martiqaadin mana ku jirno waxna kama ogin. waxaan rabnaa marka beesha caalamka iyo Soomaalida iyo dadka gobolkaba inaan u sheegno arrintaas lagu sheegay in heshiiyeen dadka gobolka loona gudbaayo maamulka gobolka in maamul goboleed loo sameeyo inaysan waxba ka jirin ayaan rabnaa inaan ummadda u sheegno. waxaan raacinaynaa marka war la iska yiraahdo oo aanan waxba ka soo bixin waxaa ka wanaagsan war yar oo loo fiirsado nuxur leh oo wax qabto. arrintaas la sheegay nimanka sheegay oo xildhibaanada waa niman beel ah, nimanka nabadoonada oo sheegay waa niman beel oo isku hayb ah. arrintaas marka waa arrin hal garab ah oo dadka gobolka uusan ahayn hal beel ah. in marka Soomaalida iyo dadka gobolka iyo beesha caalamkaba aan sidaas ugu cadeynaan doonaynaa. waxa kale oo ka hadlaynaa haddii Ilaahay yiraahdo gobasha la sheegay labada gobol baa Hiiraan loo kala goynayaa la yiri oo maamul sameynta ayaduna hadda taas waxaan u maleynayaa wax badan baa hore ooga hadalnay haddana waa raacinaynaa arrintaas waxba kama jiraan. meeshaas gobolkaas hadduu cid raacayo wuxuu raacayaa insha Allah taala shabeellada dhexe haddii Ilaahay yiraahdo. horaan u weynay Hiiraan oo laba dastuurkuna kuma yaalo nagalamana ogolo marka ayada lafteedu inaan ummadda lagu habsaaminin beesha caalamka iyo Soomaalida kalena aysan ku habsaamin madaxda dawladda oo madaxweynuhu weyn yahay arrintaas ayada aysan waxba muhiimad siinin ayaan doonaynaa maadaama horey nagala diiday haddana ay u eg tahay in waqtiga la isaga qaadayo. waxaan doonaynaa qodobka ay ugu daran oo meeshaas ka socdo meeshaas rabeen ku daran waxay tahay hadda ka hor 2013 aakhirkeedii ayaa beeshaas hadda shirka wado oo siyaasad iyo dhaqanba u wado ayaa waxay tiri meesha la yiraahdo Beledweyne suuq imaanaynaa dal iyo dibad waxaan samaynaynaa wax la yiraahdo muwaafaqo iyo talo reer Hiiraan muddo socotay ceel jaalay ka socotay waa tii hoolalka loo dhisay amniga amisom oo reer Jabuuti ah sugayay waxaa ka soo baxay in lagu duulay deefow iyo kabxanley maalintii afaraad yaa lagu duulay kabxanley saddex bari markii shirka uu xirnaa go'aankii la filayay inuu ka noqdo meeshaas wax bulshooyinka reer Hiiraan anfaco wuxuu noqday mid bulshooyinka dhexdeeda lagu weeraro. marag iyo markhaatina waa leedahay xilligaasna barasaab waxaa ahaa laqayo gobashaan marka hadda taalo marna nabad lagu sheegayo nabadayn marna lagu sheegayo inay tahay maamul u sameyn. annagu waxaan u aragnaa oo aaminsanahay tii inay la mid tahay dagaalkii oo hadda hakaday oo sidii la rabay berigii hore loo abaabulay wax u qabsoon way u fili waayay in la rabo in dib loogu cusboonaysiyo dhaqaale loogu helo. arrintaas aan annagu u fasiranaynaa wayna tahay oo warkeedu waa sidaas sababta oo ah waa keligood cid kale oo meesha ku wehelisa male inaan marka lagu kadsoobin Soomaalida iyo gobolka dadka deganba iyo macalbeesha caalamka oo la quudareynaa inay dhaqaale ku bixiso inaysan ku kadsoobin oo arrintaas aysan ku fududaanin baan ka codsanaynaa. intaas ayuu ku soo kooban yahay warkayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa shirkan jaraa'id maanta aan qabanay wuxuu ku saabsan yahay sidii uu walaalkii hore u sheegay shirkaas dib u heshiisiinta iyo maamul dhisidda lagu magacaabay Beledweyne oo ka socda la leeyahay aysan jirin wax shir ah iyo waxaan halkaan macnaha rabnaa inaan ugu cadeyno ummadda Soomaaliyeed iyo gobolka Hiiraan macnaha dadka Hiiraan oo dhan inuu wax shir ah oo dib u heshiisiin ah oo meeshaas ka jira aysan jirin wax la qabtayna aysan jirin. taasna waxaan ku cadeynaynaa annaga waxaan nahay beesha Sure oo beeshaas hadda gobol dhigno oo dib u heshiisiin sameeynaynayo dal iyo dibadba isaga imaadeen ay saayeen wax wada hadal iyo wax wada tashi ah oo aan yeelanay aan isku ogaanayna ma jirin waxaan ku balanay ma jirto. qoladaasna meelna inay ka leeyihiin maamulaan dib u heshiisiin iyo maamulaan dhisayna meelna ay abaabul dagaal uga jiraan waxaan ahayn annaga aan ku ognahay ma jiraan. dib u heshiisiin la gaaray iyo cid ku wada hadashay iyo cid u diyaarsanna ma jiraan. annaga ka mid qayma nihin beelaha kale reer Hiiraan oo waaweyn oo kalena ka qayma ahan waa beeshaas wax ku kooban oo ayada kaligeed ay dana ka leedahay. haddii annaga kale aan qiyaasno danahaas waxa waaye in meeshaas dagaalkii dhibaatada ka jirto in indhaha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed laga jeediyo ummadda caalamka iyo UN-kana dhaqaale looga raadsado sidaasna dagaalkii lagu sii kaabo inay tahay waayo haddii dib u heshiisiin meesha ka jirto dib u heshiisiinta waxaa ku heshiiyo beelihii isdagaalamay waxayna ka dhacdaa meel labada beeloodba ay tegi karaan oo dhaxaya ka dhacdaa cid dhaxdhaxaad oo laga rabo in labadaas meelood aysan dhaxdhaxaadaysan waa laga rabaa. waxaa kale rabaa cid fuliso oo wax ka qabato wixii qoladii nabadii kiiba wax ka qabataan rabaa intiiba meesha ma yaalaan beelaha gurigeeda wax dhigatay ayadaa isku maamulayso marka annaga lama galaya gobol taalaayo meel lagu heshiinaya lama galaya isbitaalka caalamiga ah noo dhexeeyaan tagi weyno noo diiday garoonkii internationalka
naloo diido dhaawacna aan loo diido lagu kalifay inaan dhabaha la soo qaadno marka nin gurigiisa wax ku samaystay dib u heshiisiin sameeyay halii yimaado wax adduunka la arkayna maaha dib u heshiisiintana waa in labada qolo ay saystay ka imaada waa in ummad u dhaxaysa jirta waa in meel dhaxdhaxaad ay jirta intaas ma jirto marka waxa waaye caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheegay arrintaas inay isku kasoomin waxna aysan ka bilawneen nabadna aysan jirin abaabul ciidanna uu jiro lana doonayo dhaqaale in lagu helo sidii hore ugu sheegay saaxiibkay sidii bariga horeba shirkaas weynaas uga soo baxday in dadka meeshaas la qabsado oo lagu duulo haddana in hadana mar labaad duula kale la celiyo in la doonayo ayaan ummadda u sheegaynaa waxaasan waxba ka jirin aanan lagu qaldamin waxaana ku cadeyn karnaa gurigayga gogol taala anaa waxaas ka dhigtay dad aan meesha joogin oo kaba soo qayb gelinaan leeshii ma garanayno annaga waxa la leeshii cidii maanta ma garanayno ayaga laga rabaa inay cadeeyaan arrintaas dadka sheegay ummadda waxa cadeynaya waxaas in waxba ka jirin waana salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu warkayga ma badna laba waa isdiidaysaa sideeda gogolaan beledweyne dhigay dadkii aan la dagaalsanaanay goobtii ma joogaan maamul goboleedana dhisanaya horta waa isdiidaysaa waxaan kaloon u sheegayaa qabiilka gogasha dhigtay magaalada beledweyne waa mid horta ayaga gooni u ah kumana jirna annaga markii ay yidhaahdaanba gogolaan dhigaynaa iyo dib u heshiisiinaan wadnaa waxaan u aragnaa annaga colaadii oo meesha laga sii cusboonaysiinaa iyo dagaal iyo haddi iyo kow dadku waa wada dhashay waa ehel waxaa loo baahan yahay nabadda sida ay tahay in loo abaaro oo dhab oo runtii oo daacad ah dagaalna waa la yaqaan heshiisna waa la yaqaan laakiin waxaan kula talinayaa qolada gogosha hiiraan dhigatay sida alla uu ku og yahay inay jidka islaamka inta raacaan gogoshii ummadda dhan ay kasoo wada qayb gasho lagu wada heshiiyo dagaalkii iyo colaadii gobolka ka taagnaa sidaas ay ku